bisha May ay tahay 2019 bisha Ramadaan ay tahay 15 waxaa dalka Soomaaliya iyo magaalada madaxda Muqdisho soo booqday markii ugu horeysay gabadha la yiraahdo Federica Mogherini oo ah madaxa arrimaha dibadda iyo amniga ururka midowga Yurub iyo wafdi ballaaran oo ay horkacayso waxay maadaama Mogherini la yeelatay shir ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaruhu wuxuu madaxa arrimaha dibadda iyo amniga ururka midowga Yurub iyo ururka midowga Yurub uga mahadnaqay taageerada joogtada ay la garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed wuxuu tilmaamay inay Yurub ay tahay saaxiibka ugu weyn oo ugu horeeya ummadda Soomaaliyeed leedahay aadna u garab istaagay dhan kasta rumaystayna in Soomaaliya ay horumar gaari karto waqti ay dad kale iyo dalal kale ay arrintaas shaki ka qabeen marka arrintaas ayuu ka mahadnaqay wuxuu tilmaamay wixii horumar dalka ka suurtagalay dhanka siyaasadda dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amniga wuxuuna rajeeyay in xiriirkaasi uu sii socdo u dhaxeeya dadka Soomaaliyeed iyo ummadaha Yurub ama ayagoo sii maraya ururkooda iyo dowladda Soomaaliya Mogherini iyaduna sidoo kale waxay tilmaantay siday ugu faraxsan tahay inay timaado xamar inay Muqdisho timaado inay Soomaaliya timaado waxay aad u ammaantay horumarka Soomaaliya ka socda iyo guulaha u suurtagalay dhan kasta waxay ballan qaaday inay European Unionku uu garab taagnaan doono ama midowga Yurub inuu weligiis garab taagnaan doono ummadda Soomaaliyeed si uu u dhiiriyo ama u sii socoto horumarka uu dalku ka gaarayo dhanka dhaqaalaha siyaasadda nabadgelyada waxay tilmaantay inay Soomaaliya leedahay hoggaan siyaasadeed oo wanaagsan oo dhab ka tahay in dalku uu horumar gaaro in Soomaaliya ay ka gudubto waqtiga adkaa ay soo martay European Unionkuna ay diyaar u yihiin in arrintaas ay gacan ka geystaan in garab istaagaan waa mahadsantihiin